galabta la dheel kulan dhaafay kulan ay isku arkeen laba quwadood kulan aan inta la isu sheegan kulan ay isku arkeen mudug iyo bari kulan reer mudug indha adeeg dartiis ay indhaha u shiteen reer bari kulan ciid iyo caduun oo isku dhinac ah iyo bad iyo buur oo isku dhinac ah isku arkeen kulan gooshii u dhameysay falash ama safeenuska casriga ah loo shitay mudugna ay tiri koobka cawaale dhinacna u dhaafi maayo kulan reer bari ay yiraahdeen arbow tooshka ay shiteen ayay nagu gaadeen reer mudugna ay dhaheen walaal waa cilmi idinka maqan ee wax naga barta kulan bari lagu yiri waxba lagu soo hirtaayay maxaa ka soo horeeyay marna dib loo xasuusiyay sheekadii ahayd arbow mamboosaad ka timid ma soo badibaad istiri ma boorka lagu qariyay saadaal kasta oo la filayay ayaa fashilmatay waxaana soo baxday oraahdii kubadii waa cadaan iyo madow hase yeeshee sidii aad u ciyaarto ayay ku xiran tahay ciyaartu waxay ku bilaamatay xamaasad gaar ah oo sidii hore ka duwan waxaana garoonka labadiisa dhinac shitay taageerayaasha labada xul taas oo xamaasadda ciyaarta cirka geysay waa semifinalka koobka gobolada Puntland labada xul ee galabta dheelayay kan badiya ayaa finalka u gudbayay halka kan laga badiyana uu gabi ahaanba ka hari doono koobka gobolada Puntland ciyaar dhaaftay ayay ahayd ciyaar la ismari waayay ayaa la dheelay qaybtii hore ciyaartuna waxay ku soo dhamaatay eber iyo eber qaybtii dambe ciyaarta ayaa la isu soo laabtay iyadoo koox kasta ay rabto inay iska xaadiriso finalka koobka gobolada Puntland ee galkacyo ka furan weerar iyo weerar celis difaac xirasho iyo xirfad kasta oo banooni lagu badin karo ayay dheeleen labada xul waxa ay ciyaartu sidaas ku socoto waxa soo dhamaaday waqtigii lagu talagalay in kubadda la dhameeyo inta kadib waxay garsoorayaashu iclaamiyeen in la isla aado rigooryaal sidaasna lagu kala baxo sidaas ayaa lagu bilaabay tuurashada rigooryaasha sida caadiga ah xul kasta waxa uu xaq u lahaa inuu tuurto 4 rigoore laakiinse waxaa la tuurtay in ka badan 33 rigoore ciyaartii galabta ayaa ahayd tii ugu adkeyd uguna xamaasadda badneed ee lagu dheelo deegaanada Soomaalida gaar ahaan Puntland bari xaaladda ayaa ku adkaatay markii la marayay xilli dambe taageerayaasha mudugna indhaha ayay u shiteen bari liman ablok difaac gooshiisa nuunase laga dhali bari halkaas ayay ku hartay oo ku seegtay tigidda finaalka tartanka gobolada Puntland liban dhankiisa waxa uu difaacday gooshii guusha arbow war aan ka dabageeyo wiilka yar ee mucjisada ah ee la yiraahdo liban waa wiilka reer jigjige sanadkii labaad oo xiriir ah ayuu finaalka iska xaadiriyay sanadkii 2021 isagoo heelan la socda ayuu finaalka tigay sidaasna koobka ku qaaday haddaba sanadka mudug ma la qaadi doonaa koobka gobolada Puntland maxamed cabdiraxmaan saciid warcay media